bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamij gaara oo ku saabsan dhibaatooyinka heesta dadkii ka soo qaxay magaalada muqdisho dagaaladii ka dhacayay toddobaadkii hadda la soo dhaafay nagala socotaan tv-ga caalamiga ee jabba t v dad fara badan ayaa ku dhibaataysan magaalada caasimadda gaar ahaan deegaanka loo yaqaano daarusalaam iyadoo aad maqlayso in dad fara badan ay magaalada ka carareen intooda badanna dadka ugu badnaa ay tageen deegaanka daarusalaam haddaba mid ka mid a hooyooyinka soomaaliyeed oo lagu magacaabo hooyo xabiibo ayaa ka hadlaysa dhibaatooyinka ugu ballaaran ee ku haysta deegaanka daarusalaam ee magaalada muqdisho maamada ayaa waraysan doonaa hooyo xabiibo oo ka sheekaynaysa dhibaatada ugu cusleed ee ku haysata agagaarka daarusalaam gaar ahaan kaam ku yaala halkaasi oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 300 oo qoys haddaba hooyadan ayaa ka hadlaysa dhibaatooyinka haysta kusoo dhow maam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوحان ماشي أنا إسكا قريب أتيسن هاي وحن وصل هذا الكهتة مكري كرا وحاي هاي نربا بوق بدن ما أقولي سدح ويلو أقوم أنا هان هايستا وجبرت إذا الشيء أي هاي سنة قول ما هاي سنة وحب ما هاي سنة وأكا وحيلها نقرتنا وإسكا هلنا هو وإلهي walaalka nooga soo qaada laakiin daryeelan u baahana haye maama waxa nooga warbixisaa dhanka aragga indhaha xataa waxba ka dareemaysaa Soomaa aragga indhaha ishaan waxba kama dareemo ishaan dhinacan xigta ayaa hadda wax ka dareemaysaa xanuun saa'id marka imise caruur ayaa hadda joogto inta 3 wiilan haysta agooman oo aabahood 3 sano ka hor kana kamida caloosha ugu jiro caloosha 2 bilood ku ahay intaas walaal siiyay moogi waalid hadda qumano ay ku tiirsan yihiin mala weli ma idin soo gaaray wax gargaar ah bini'aadanimo ah oo caruurtan agoonta la siiyay ama adigu ku soo gaaray ma jira weli waxa laba bariir boqol aan la sii beento waa xunta waa Soomaaliya aniga been ma sheegi karin boqol maxaa ula jeedaa ma $100 ama 100 kun shilin Soomaali ah Soomaali waa 100 kun oo kaliya Soomaali marka ummadda Soomaaliyeed ee jooga adduunka dacaladiisa iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho gobolada ku xeeran maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqaynaa walba tabartiis inuu Ilaahay wuxuu ka soo qaado oo nagu caawiyo oo naka dad meel iska fadhiyaan nala caawiyo ninkina dhaamasna caawiyo ninkaana dhaamay ma dhaam ka waran bal cuntadiina ka waran cuntada dhanka cuntada marka la eego ee caruurta waxay cunaan ma helaan adiga cuntadaada bal ka waran arintaas nooga hadal naga umada meeshii joogtaan ka midnahay wax hadda gaar ah qabno malaha laakiin wax walaal una gargaaro oo kaamkana wax baa laga karkariyaa qaadadaas kaamka laga kariyana waa iska soo qaadanaa oo idin soo gaarta marka habeenkii ma heshaan mas maalinta helaysa habeenkii helna beenta waa xunta waa ka maamulkii ka mid ah habeenkii cuntada idin soo gaarta laakiin maalinka afkiina qabtay maalintii ciyaalkaas yar waxay cunaan ma haystaan ilaahay wuxuu calfo gasoo caana boora hadii ilaahay muslimka ugu soo qaado waa loo qasaa maalintii waa iska hergalnaa marka ummadda Soomaaliyeed ee adduunka ka daawanaysa ee TV-gan Jabba TV ee daawanaysa teleefankaaga bal u sheeg si ay ayagana gargaar intay awoodaan ee kugu soo sameeyaan ummadda islaamka ee TV-ga daawanaya sheeg Abdullah furaha waa 5 23 17 86 ma mid tahay dadkii dagaalada ka soo qaxay Soomaaliya dadka dagaalada ka soo qaxan ka midnahay Muqdisho ka soo cararnay haddana waa luqusho haynaa meesh wax kuma haynaa miska noqonnaa miska joognaa meela ku salaysiina laadahay meela ku salaynaa la beenta waa xuntahay macna inaad joogtiin inaad meesha tagtiin inta aad joogtiin gargaar ma haysatiin xaga hada tagtiin dhibaato ka baqaysa dhibaato ka baqayna iyo carar kala hadana waa marlabada hadana soo macararka marka hore dhibaato ka soo cararteen marka yaa idinku saaciiday inaad meesha ka soo baxsataan dagaalka meesha ka dhacayay maadada idinka soo dhiib baawurka mase waa iska soo lugayseeno luga isaga imaateen qaar luga iskaga imaadna qaar dad aan saaciideeyay oo saasa ku imaateen halka saasa ku imaadnay marka ilmahan hadda hooyadood ma joogtaa ee caruurtan ogoonta hooyadood waa joogtaa haye hooyo kale waxay qaban kartaa ma shaqaysato
ayadii aba cilcilis iyo kaaba cilcilis aniga wax ma celi kar waa jiranahay caladada dhardhaqow hataa iska aada dhardhaqow hataa uma aada iyada marka hooyada marka ilmihii ilaalinaysaa oo meel dhardhaqo ima aadi karto ilaa carruurta yaryariin soo maa carruurta waa yaryar yihiin cilcilis ay rabaan ay galaaska caana u qastada ay rabaan aniga ma awoodo waa ii jeediin qof kale oo gargaar oo dadka deegaanka marka laga reebo kaamka marka laga reebo waxa ay ku siiyaan dadka kale oo meelaha ka dhow alashaan deegaanka ka dhow daarusalaam oo kale ma idin imaadeen wax ma idin keeneen أنا معانا labada bere boqol ku nasi Allah waaka hay-adaha maxaa ugu baaqaysaa hay-adaha sheegaya inay bixiyaan gargaarka oo gobolada Soomaaliya iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho jooga ee dhahay gargaara bixinaa maxaa ayaga ugu baaqaysaa ayaga ahaantooda maadaama adiga ilmo dhibaataysan ah haysato adiga aad dhibaataysan tahay aabahood oo si joogin ilmihii maxaa hay-adaha ugu baaqaysaa hay-adaha waxaan ka codsanaynaa ilaah baa wax laga codsadaa waxaan ka codsanaynaa inay na daryeelaan oo qaxootiga Daarusalaam dhibaato weyn ka jirto oo intaanoo buush oo bac saareen bac la'aan iyo dhibaato haddana looga noqday oo waxaanoo buush bac lahay aniga marka hadda waxaa idinkugu daran waxay ka mid tahay bacyaashii roobka loo gamba lahaa oo hadda saacadan aan hadlayno roob ayaa da'ayo meelaha qaarkood roob ayaa ka soo galay si aad dareemayno marka bacyaashii roobka loogu talagalay xataa waxay ka mid tahay caqabadeeda haysato dhibaatada haysatay ka mid tahay waa kuwa hadda wiilkan deriskayga bac ma haysto aye waaga baryana wuxuu ugu carara ugu sii carara nin iska meelhiisa iska xoogsada waa bac la'aan oo ugu carara marka dhibaato xalay sheegi maayo dhibaato taas barya maaha indhihiinaad ku haysay idinkana waraysanaa waa dareemaynaa dhibaatadaas ilaahay ka dulqaado marka ugu dambeyn hadda ummadda Soomaaliyeed sida aad og tahay barnaamijka waa daawanayaan dadka dibadda jooga dadka dalka jooga dawladda laftirkeeda waa daawanaysaa iyada xataa maxaa ugu baaqaysaa dawladda iyo dhammaan ummadda dawladda waxaan ugu baaqayaa inay nabadgelyo aan ka helno oo wadanka nabadda iyo colaadda iyo dhibka nagala dhaaf oo wixii colaad keenaya dawladda aysan ku dhaqaaqin oo ina dhibaataynin 30 sano 40 sano qaxow hayna oo cararow hayna oo salka dhulka la dhigi laanahay ummadda islaamka nalama qabto colaadan iyo dhibkan Soomaali Muqdisho ay ku kooban tahay in nagala joojiyo oo macnaha tumanin oo nala dhibin aan ugu baaqayna oo ilmahayna xabadda iyo agoonta la dhibay ilmahayna waxa agoontay xabadda aan joogsanaynin maamo ku celi magacaaga Habiiba la yiri aniga marka waa mahadsantahay maamo aad iyo aad ay u mahadsantahay TV-ga ku wareysana waa Jabba TV kulana insha Allah taala dad fara badan ayaa ku soo gurman doono sida aad dareemayno maadaama dhibaato culus ah sheegtay insha Allah jawaabta dadkan bulshada ka soo bixin doono jawaab aad u wanaagsan insha Allah waxa codsanaya wixii aniga Ilaahay ii soo qoro ummadaas Ilaahay iga soo qaaday inaan bili aadan liigu dhiibano mobilkayga liigu dhiibo insha Allah maam furo waa 5 23 17 86 furo waa 5 23 17 86 lambarka waa kaasa insha Allah taala maamada loo soo gargaaro insha Allah taala wali waxa soconaya waraysiga yeelan dadka dhibaataysan ee ku sugan oo barakacayaasha ee ka soo barakacay qaybo kala duwan ee magaalada Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Hoose dadkan barakacayaasha ayaa dhibaato ku haysa deegaanka Daarusalaam ee magaalada Muqdisho waxaan nagala socotaan wali TV-ga Jabba TV ee magaalada Muqdisho haddaba haweeney kamid ah haweenka Soomaaliyeed oo kamid ah barakacayaasha dhibaataysan oo haysato ilmo agoona ayaan waraysan doonaa waxaana ka hadlaysaa aragtideeda ku aadan dhibaatada culus ee ka taagan deegaanka Daarusalaam dadka soo barakacay iyo dhibaatooyinka haysta magaceedana iyada ay xilaabi doontaa bismillahirrahmanirrahim magacayga Muhammad Daahir Abdiiraada ilmo agoona waa 3 agoon wiil ah hal iyo wiil kalena aabood waa furay qololan waa leeyahay waa kala tagnay waxa hadda u haay ma jirto soon waa iidna aan ku rabaa dar iidna waa u rabaa wax hadda ka siyareeyo bariisa gurigeyga laga arkaa wax aan u haay ma jirto waxaan idin ka rabaa insha Allah taala ilaahay idinkiisa idinkeena ahaan inaan isoo taakuleysana u baahanahay
إن شاء الله مساكن أسكاهي بركة عن ماشان حول يحلي بدادا يقاد لهاي أنا حامله إلا أحد وحربيه يا قركي سنة السنة هاي أنا إسوا تأكل سنة وباهنا ما شاء الله maama xagee ka soo barakacdeen ma waxaa ka mid tahay dadkii ka soo cararay dagaaladii ka dhacay magaalada muqdisho toddobaadadii la soo gudbay ma dadkaasaa ka mid tahay mase barakac hore oo meesha degnaa ayaa ka mid tahay بركة هوري وماشي دقنا وكم جهاي حاق سوكع مرة جنب الأولى كسوكعي حاق سو عرري عدنا حاق سوكعي قال حاق سو بحي أنا إدان درس كيجا إسكمل نهاي وحنا هاي لما جرت إن شاء الله marka ilmaha agoonta imise ayay gaarayaan tiradooda marka aan noo sheeg ilmaha agoonta saddex wiil waay oo saddexda hadda wiil oo noo muuqanaysa waa miya haa saddex wiil waay iyo wiil gabar oo aabahood kala tagnay iyo ka caloosha maasha allah wax gargaara ma ka hesheen hay-adaha gargaarka bixiyo ee magaalada muqdisho ka howlgala iyo gobolada soomaaliya wax gargaara ay kusoo gaarsiiyeen ma jiraa ama dadkan qaxootiga walaalaha wax lasoo siiyey oo adig kusoo gaara ma jira waxa karis ahayn waxa kaleba ma arkin waxa karis oo nanoo ka karinayo afur iyo nanoo ka keenayo ma wax kale aan hadda aan arkin ma jiro wax eeran liisii ma jiro taasaan ku marka imise waqti ay ciyaalka heli karaan cuntada ay cunaan maadaama ciyaalka ay yaryar yihiin haddana agoon ay yihiin imise waqti heli karaan inay cunto cunaan anaa usoo qaraabana agjogjo usoo arurina hadda xagga igu buuxa aagaasaa aan gagadana 4 xabo kun 3 xabo kun aan ku gadanaa intaasaa badar ugu keensanaa marka caagaga caadiga oo saddexlayaasha iyo shanlayaasha ayaa iska soo urursataa kadibna ayaga ayaa wax kasii gadgataa markaas kadibna ayaga ayaa wax ka siisaa haa intaasaa mar amal bataya aan aruurina miisana liisaara 2 kiilo 3 kiilo waxa ay noqdaana isku soo jajaafana ololeyda iyo soorteeda ugu soo gataa badar ugu yeeshtaan iskiil bariistii soo halwa ugu gataa waa badar ugu yeeshtaa ay hadda goorma ugu dambeysay inay wax cunaan ciyaalka saaka si u soo kacaan koob shaahi ay anas ilaahay ugu yahay koob shaahi waxa quraaca loo kariyo oo loo keeno ma jiro quraaca ma jirto saan hadii si u jooga boqol ay igu soo kordo ay guriga daad iga galay waa la xafin waa kisti bariiska u yaalan si kare u dhahay saana oo maanta dhan hawo gudda ay guriga kala habeen isku jiro wax gargaar oo ka soo gaaray dawladda Soomaaliya ma jirtaa iyo marka iyo hadii lagu daro ganacsatada gobolka Banaadir iyo shirkadaha magaalada ku yaal weliba wax ma soo gaarin waa la idin imaana iyo bariya la idin imaana bardamba la idin imaana la lagu jira 2 bilooda meeshan asaan ugu rafaasanahay oo muddo 2 bil ka hor waxaan leedahay waan la soo socdaa ilaa ay hadda waan la soo socdaa ilaa ku jirnaa ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya hay'adaha iyo dhammaan dadka ganacsatada iyo dadka wax haysta maadaama lagu jiro bil barakeysan ee Ramadaan oo qeyrkeeda ay wadato oo codsanaya inta gargaar noo keenaan soo gaaraan alaladii saang noo rafaasan korkeena roob ku ducooyo gaajaan hayso waxa aniga haysana ma jirto waxaan ku rabnaa ilaahay idinkiisa noo soo gargaarana raashin iyo lacag iyo dhar ciid naga deeqana u baahanahay إن شاء الله ولا يدو إلى إدماء وكسو جاري دونان dadka islaamka ee jooga adduunka iyo caalamka meel kastaba waxa ay kugu tala galeen ay soo gaar doonaan u sheeg lambarkaaga si ay dadka kugu soo hagaagaan meel lambarkaaga kala soo xiriir karaan ama ay wax kugu soo taakuleen karaan dadka bini'aadamka islaamka u sheeg nambarkayga 78449 way ku celi bal hal mar 7 way furaha 78449 هذا يوم سنتي مامada Soomaaliyeed bal hadii ciyaalka ay hadli karaan magaca yarisu magaca Abdullahi maxaa codsanaysaa Eid maxaa codsanaysaa Eid soo dhow maalinta Eid maxaa codsanaysaa dhar lagu keeno hada wax dhar ma haysid Soomaa okay haya adiga magacaaga ya halura haya samatar miya ay maxaa codsanaysaa maadaama ciid ay soo dhowdahay ciidan ugu soo dhow maxaa ka codsanaysaa dadka islaamka dhan dhar ciid lagu soo dhiibo oo wax lagu siiyo ayaa u baahan tahay hay adigana magacaaga nuur maxaa ka codsanaysaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan adduunka ka dhageysan ka daawanaya إن شاء الله تعالى وعافليا إن جرجر بنا أدنمو لصو سمين دونه دت كان إسلام أو صوماليات دبعتيسن كنا دبعتيسن ديجان كدار السلام أو كم إذا ديجان هذا لصو بركعي دت كنا هذا دريميان دبعتين هذا العرس وعكده ونسين تي في جب تي في
gabagabada barnaamijka ayaa soo gaarnay weli waxaa naga daawanaysaan tv-ga jabba t v waxaana la joogo mid ka mid a ee gadoomiye kaamiyada ee ka dhisan ee deegaanka daarusalaam ee magaalada muqdisho oo lagu magacaabay ibraahim. haddaba ibraahim waxaa weydiin doonaa dhibaatooyinka ka taagan guud ahaan deegaankan iyo dadka soo barakacay dhibaatooyinka heesta. kusoo dhawo ibraahim. waa ku dhowahay, waa mahadsantihiin. meeshaan hadda waxaan joognaa muddo adiga 15 beri ama 20 beri, adiga ugu badnaan 20 beri aan joognaa meeshaan. dadka joogana dad yar ma aha, dad kun iyo xoogaa kor u dhaafayo waaye. xaaladday ku sugan yihiin hadda meeshaan lagama sheegi kara, qofka imaado unbaa arki kara. marka ilaa haddana wax dad oo daarusalaam ka socda oo dhalinyaro oo iska tabarucaad oo arday maahane wax hay-adaho meeshaan imaaday male. dadkan gacan qabashay u baahan yihiin. ninkii dadka muxsiniinta oo ilaahay siiyey ama mas-uuliyiinta ama hay-adaha waxaan ka codsanaynaa in meeshaan ay wax la soo gaaraan. xaaladeeda caadi ma aha. roobka ka waran saameynta roobka oo ku yeeshay dadkan masaakiinta ee soo barakacay dagaaladii ka soo cararay magaalada caasimadda ka dhacayay oo soo gaaray deegaanka daarusalaam, roobka saameynta oo ku yeeshay. wallaahi waxa koowaad oo hadda ugu daranba waxaa waaye baca ugu daran. xalay waqti macnaha 7 saac meelahaas uu roobka bilowday ilaa subaxda waaga ka bariya waa soo jeedeen. bac ma haystaan, bacda ugu daran. bac iyo raashin waaye waxaa dadkan ugu daran oo muhiimka ah. dadka qaarkood oo hadda ka soo barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada muqdisho intooda badan waxay soo gaareen deegaanka daarusalaam. marka hay-ado wax soo gaarsiiya ma jiraa? haddii aysan jirinna maxaa ugu baaqaysaa hay-adaha? wallaahi hay-ad iska dhaafay dad xataa mas-uuliyiin oo u imaaday ma laha. meeshaanay dadka iska joogaan, kuwii horey u joogay oo 20 beri joogay iyo kuwii xamarka soo barakacay kulli waa isla joogaan. annagana waxa uu qaban karnaa amnigooda baan ilaalinaa, wax kale oo qaban karna ma laha. kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a gadoomiyaasha ee ka dhisan ee deegaanka daarusalaam ee magaalada muqdisho oo u waramaya tv-ga caalamiga ee jabba t v. halkaa ayaan barnaamijkaas kusoo gabagabeynaynaa. insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in dad fara badan oo soomaaliyeed ay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka taagan deegaankani. waa mahadsantaha gadoomiye.